caawa waxaynu isugu nimi xafladda ballaaran oo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer kulan ay kula qaadanayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharaxa madaxweynaha xisbiga inta xafladdu socoto waxaynu ugu talagalay dhowr qodob inay ama ajenda inay noo hirgalaan waxyaabaha aynu ugu talagalay waxa ugu horeeya in isxog waraysi dhexdeena maro dhalinyarada iyo aqoon-yahanka taladooda fikirkooda aragtidooda soo jeedintooda in gudoomiyaha iyo hoggaanka xisbiga iyo mas'uuliyadda xukuumadda madashayna la jooga ay dhageystaan oo aynu isxog waraysano oo taladu xaggeena ka timaado dhalinyaro ahaan aynu waxaynu xog hayno iyo warbixin soo gudbino dhinaca kalena mas'uuliyiinta aynu hadaladooda iyo khudbadahooda iyo warbixintooda dhageysano qodobka labaad aynu ugu talagalay munaasabadda inaynu uga faa'iidaysano caawa ajenda ka mid ah waxaa qayb weyn ka ah maalinta beritoolaha waxaa guud ahaan ka bilaabi doona gobolkan Togdheer kaar qaybintaas waa ta qeexaysa ama kala saaraysa lagu tartanka aynu ugu jirno waa ta awood inoo siinaysa beritoole inaynu dooranno hogaamiyaha aynu qarankeena ku aamini karno ee talada waddankeena aynu dhiibayno hogaamiyaha halkaa inoo fadhiya Muuse Biixi Cabdi ee aynu hubno waxaynu hoggaanka iyo mas'uuliyiinta kale dooranayna wata go'aankeeda inuu kaga gaari karnaa waa kaar qaybinta beritoole bilaamaysa in aynu isku dhiirigelino dhalinyaro ahaan inay kaalin libaaxla ka qaataan qof waliba beritoole uu ku faylo meeshuu iska diiwaangeliyay si uu kaarkiisa u helo qodobka labaad aynu ugu talagalay munaasabadda saddexaad wuxuu yahay inaynu muujino taageerada iyo awoodda ballaaran ee dhalinyaro ee xisbiga kulmiya ku leeyahay xaggee gobolka Togdheer uu ku leeyahay arrintaas baynu ugu talagalay qodobka labaad waxa halkaa fadhiya waxa doorkii iyo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada waxay muujiyeen maanta inay diyaar u yihiin taageeraan isgarab taagaan sidii hore loogu yaqaanay kulmiye ay talada dalka u geeyeen inuu ka taliyo inay maantana u dacal taagan yihiin madana gudoomiye waxaanu kaaga mahad celinaynaa oo midhaheediina aynu aragnaa sidii fiicnayd ee aad isu garab taagtay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaad daawanayseen maalmihii ugu dambeeyey gudoomiyuhu isagoo garoomada burco ku yaala oo dhan qalab direysyo koobab bilado qalabkii lagu ciyaari jiray garoomada burco ku yaala oo dhan intuu ugu soo talagalay garoon aan u geeyay waxaad ogeydeen degmooyinka gobolka Togdheer oo tartan loo qabtay oo koobab iyo bilado iyo abaalmarino la gaarsiiyo degmada Beledhig lagu qabtay oo ay ka qayb galeen 6 degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka hoos yimaada taageeradii iyo aad u muujisay dhalinyarada madara gudoomiye waa taa maanta muuqatay inay iska garab taagaan oo ay soo buuxdhaafiyaan